dagaal xoogan ayaa ku dhaxmaraya Xamaas iyo Israel deegaanka lagu magacaabo Khan Yunis ee bariga Marinka Gaza. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ku boorin doona in Israel ay xakamayso rabshadaha ay ku sameeyaan dadka reer Falastiin. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka fiidnimo ee Shakal TV. warkan waxa uu diyaaray inuu idin socodsiyo anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Ibrahim Cabdirasaaq Shiine. qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah hagaag daawadayaal aan ku bilaabay shacabka magaalada Jigjiga ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhismayaasha jidadka laamiga ah ee ka socda caasimadda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga. faafahinta warkaasi waxay noo hayay wariye Cabdixakiin Maxamed Muuse Cabdixakiin Rijaal. xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa bilihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida ka wada jidad cusub oo laami ah kuwaasi oo ka kala socda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga. jidadkan ayaana waqti xaadirkan ah kuwa gabagaba isla markaana ay xukuumaddu sheegtay in ay xadhiga ka jari doonto maalmaha soo socda. haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo aan wax ka weydiinay ahmiyadda ay jidadkan u leeyihiin ka bulsho ahaan ayaa ka warbixiyay sida ay u soo dhaweynayaan isla markaana sheegay in ay kaalin muhiim ah ka qaadanayaan isu socodka gaadiidka iyo bulshadaba jidadkan cusub ee ay dawladdu ka wado magaalada Jigjiga. iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay ka shacab ahaan sababtoo ah wax inoo soo kordhay baan u arkaa oo qurux badan oo wanaaga in magaalada bilicdeeda iyo waxa weeyaan quruxdeedaba la kordhiyo maadaama ay tahay caasimadii ama wajigii deegaanka Soomaalida ee ummad fara badan oo kala duwan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay isugu imaanayeen. waxaan aaminsanahay bilic iyo qurux fara badan bay ku soo kordhinaysaa taasina ay keeni kartaa in magaalooyinka kale ficeeda ay waxa weeyaan la tartanto oo bilic wanaag iyo dhinac walba ay ahaataba kaabayaasha dhaqaale ku soo kordhaya markaasi ay qayb weyn ka qaadanaysaa aaminsanahay. horta wax weyn bay ku soo kordhin kartaa baa la soo karayaa sababtoo ah waxa weeyaan wadooyin fara badan oo dayactir u baahnaa baa jiray oo waxa weeyaan la dayactirayo iyo wadooyin fara badan oo hadda cusub oo la bixinayo intaba wax badan bay ku soo kordhinaysaa haddii aynu eegno dhinaca isu socodka gaadiidka inay yaraadaan jaamka iyo waxa weeyaan wadooyinka ciriiriga inay yaraadaan baahiyo fara badan oo wadooyin bulshada oo qabaan in waxa weeyaan ay daboosho. niyow runtii waxaan arkaa arrin qurux badan oo bogaadin mudan sababtoo ah waxyaabaha bulshada ugu baahi badan tahay gaar ahaan magaalada Jigjiga markii la dhaho waa jidadka kuuka sababtoo ah dadkii way soo bateen gaadiidkii iyo gawaaridi way badatay mar walba marka waxa loo baahan yahay jidad ay bulshada adeegsato oo u fududeeyo inay meelihii si degdeg u gaadhaan. hadda suuqa marka doonayso inaad meel uga gudubto kale magaalada wadadan weyn marka adeegsanayso jaam badan baa jira gaar ahaan maalintii oo gelinka dhaxo kale marka shalay oo kale markaan soo marayay hadda wadada Kaylaa Herar aad iyo aad baan ugu farxay shaqada laga qabtay iyo xarika jarkeedii jidka sodonka marka la eego iyadana waa sidaas oo kale gaadiidkii iyo dadkii way kala faaladeen aad iyo aad baan dadku ninkii maraayo dhan ugu faraxsan yahay dawladda marka aad eegto boqolkiiba boqol maanta isbedel weyn bay samaysay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadkiina uu kala faalalay waqtigii hore hadda wadadan weyn ee marta maartay isku xidha dhagax buur iyo Itoobiyaada kore intaan buu ahayd hadda wadooyinku laakiin shalay toole markaan eegnay jidkii sodonka waa la dhigay wadooyin kale oo duwan oo kale waa la dhigay anigu waxaan hadda ama kaariyada degmada Shabeelle baan kamid ahay waxaa jira hadda isku socodka gaadiidka maadaama meelo dhawaa oo qabalayaasha aan ka shaqeeyaa meelo waxaa jira hadda cidhiidhi oo dadka hadda ruuxa ama umula ama xanuunsanaya lagu soo qaado hadda sidii wasaasadii oo kale lagu soo qaado wadooyin lahayn marka sida ay magaaladu horumarku uga dhacay miyigana ha lagu daraan oran lahaa dawladda aad iyo aad bay shaqo ballaaran u qabatay. bismillah wadooyinka hadda koor dhibaatooyin badan baan ku qabnay wadadan waliba wadada weyn ka dambayso oo kale dhibaato weyn baan u waysay kaliya xanuun baan ku qaadnaysan u mareynay taraafikaduna wadooyinka kale way xidhan oo waan soo mari jirnay hadda maadaama wadadii la wado oo waxaan ku bishan gudaheeda dhamaatan la rajeynaya insha Allah dawladda aad aad mahadinaynaa wadooyin badan waa naloo wadaa wadooyin kale badan way jiraan oo waxaan ku in la sameeyo u baahan kuwan dawladda waxaan ka codsanahay sidii kuwan laamiye nooga dhigayaan hadii aan awoodin xitaa inay naga noo mariyaan maxaan dhahday
cagafyo badan halkii aanu hadda ka hor nagu qaadan jirtay 40 daqiiqo aan la soconno imika ilaa 7 daqiiqo ka yar aan la soconno macquula waxaan rabaa dumarka xaamirada oo kale ama hooyada qalan markaan wadno wadooyinka dhibaatooyin badan ma kala kulmeynay ilaanu taayirka u rognoon aan yar soconay hadda ka hor ahayd imikana waxaan ku urday waa wadooyinka laamiyada arkaysa orod baan ku tagnaa markaaba magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka oo ah magaalo ballaaranaysa isla markaana korriinkeedu ku socdo xawli ayaa ahayd mid aan hadda ka hor lahayn jidad halbuulayaal ah oo dhaxmara xaafadaha kala duwan ee magaalada Jigjiga inta badan gaadiidleyda ayaa muujin jirtay cabasho ku aadan jidad xumada ka jira magaalada Jigjiga xukuumadda deegaanka Soomaalida oo arrimahaasi ka duuleysa ayaa ugu dambeeyay ku hawlan hirgelinta dhismaha jidad cusub oo dhaxmaraya magaalada Jigjiga qaarkoodna ku wareegaya Cabdixakiin Maxamuud Muuse Cabdixakiin Rijaal Shakaal TV magaalada Jigjiga qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga halkani aan ku suganahay waa bartamaha suuqa caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxa aan maanta la kulmay dhalinyaradan iga dambaysa oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku sugan gudaha caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida dhalinyaradan aad arkaysaan ayaa waxa ay ka cabanayeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan saraha dhaadheer iyo xafiisyada ku yaala magaalada Jigjiga sidoo kalena waxa ay sheegeen inay caqabado fara badan kala kulmaan hadday tahay foolista xafiisyada dawladda iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee dabaqyada dhaadheer iyo sidoo kale goobaha cibaadada iyo masaajidda waxayna ka codsadeen dadka ay qusayso in hadda kadib lagu darsado qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo sidoo kale dadka naafada oo lagu xisaabtamo marka guryaha la dhisayo in lagu dhiso ama lagu daro qaybtii loogu talagalay dadka naafada ah halkii ay marayeen kuwa wanjeerka ku socda kuwa aragga naafada ka ah iyo sidoo kale kuwa ku socda ulaha lagu socdo ee lagu boodo waxayna codsi iyo baaq dheer u direen cid waliba oo ay arrintaasi qusayso in hadda wixii ka dambeeya wax laga qabto sidoo kalena codsigooda laga jawaabo iyagoo arrintaasi ka hadlayana waxa ay yidhaahdeen waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan ka hadlo hadday xafiis tahay hadday goobo ganacsi tahay iyo hadday goobo cibaado tahayba intaba in aan ku dhibaataysannahay dadka baahida gaarka qaba waliba dadka wheelchair ku socda way sii kala liitaan dadka baahida gaarka qaba dad waxaa jira inay cibaadaystaan u baahan sidoo kale hoteelada kale dad waxaa jira inay degaan u baahan oo u baahan macnaha inay adeeg u doontaan waxaa jirta goobaha waxbarashadoo kale xitaa waa aad baan ugu dhibaataysannahay ma jiro accessibility loogu talagalay dadka baahida gaarka qaba ma jiraan haddii jaamacad tahay qaybta jaamacadoo kale iskuulladoo kale ma jiraan baan dhihi karaa dadka baahida gaarka qaba in intay iyagoo si iskooda intay u tagaan ay hawlahooda u soo dhammaysan karaan ilaa caqabad ay ka hor timaado mooyaan waan dhowahay anigoo ah magacaygu Khadar Maxamed Xuseen kana tirsan dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan xagan cod dheer uga dirayaa dawladda in xafiisyadii goobihii waxbarashada goobihii kale caafimaadka iyo goobihii kale bulshada wax loogu qabanayo hadday noqoto in lagu soo darsado qaybaha accessibility-ga oon hadda lahayn laakiin iyaga door laga qaato libaax oo hadda wixii laga bilaabay la dhisayo in lagu daro nalagana qaybgeliyo annagana nala tago oo kan xafiiska dhisaya mas-uuliyiinta ama wasiirada ama dawladda hadday noqoto ama shacabka kaleba dad intoodaba la midoo waxaa jira mudan dadka laxaadkoodu dhammaystiran yahay in la eego oo annagana nala eego oo annagana meel baahidayada ka turjumi karta naloo sameeyo oonu codsiyadayadii wax iyagoo aan u baahannahay u gudbisan karno accessibility-ga nalagu darsado goobaha ganacsatada ee shacabka bulshaweynta dowlad deegaanka iyagana waxaan u sheegayaa meelaha dhisanayaan guryaha dhisanayaan macal ku xaafadeed ku ganacsi ku hanti oo qofsgaleedu sidii doona ha ahaato nooc walba inay ku darsadaan dadka baahiyaha gaarka qaba meesha accessibility-gu ka wheelchair-ka ku socda kan qaybta aragga leh dhoolahaas aan u naqaano iyo kii kale kan dhisanayaaba
berri ka maalin noqon doonaa qof dadka baahiyaha ku soo biira ama markuu gaboobo laftirkiisa u baahan doona meel uu maro oo hadduu ul yar ku boodayo meel garabka la qabto agaagsan mari karo inna lagu soo darsado goobaha golaha arrimaha islaamka ee qaybta masjid alaha waxaan iyagana culimadiinka u sheegaya in markii masaajidada goobaha cibaadada bartaa wax lagu wada cibaadaysanayo ilaahay lagu xuso waan u wada simannahay meel kale lihiin in idinku dadka laxaadkooda dhammaystiratis eegaan oo la dhisa taa laftirkeeda cudurdaar baanu ka gudbinaynaa oo waxaan leenahay goobaha arrimaha islaamka in lagu darsado dadka baahiyaha gaarka qaba meel ay mari karaan meel ay idinkula cibaadaysan karaan ay idinkula tukan karaan masaajidada caqabadaha kulley waxaa kow ka xagga haddii aan soo qaato dhismayaasha oo kale ama ha noqoto xafiisyada ama goobaha cibaadada masaajidda ama guryaha ganacsigaba kulley caqabado badan baa ayaa ka haysta dadka naafada hadda maanta haddii aad u baahato inaad xafiis aad maaragtay aad mas-uulkiisa aad la kulanto oo hawl aad u baahnayd aad ka qabsato meeshii waa jaranjaro waxaa laga yaabaa dabaqa u sarreeya inuu saaran yahay marka dantii waxay kugu kallifay inaad hoosta fadhiisato ood sugto intuu wakhtigiisii iyo shaqadiisii uu soo dhammaysanayo marka xitaa ma helaysid qof talalaakiya oo warka kaaga gudbiya si uu kugu xisaabtamo marka kolku soo dhaadhaco si uu ku ogey si uu maarata maxaad u baahantahay uu ku yahay xitaa qofkaa ma helaysid waxay dantu kugu kallifay inaad fadhida halkii oo si aad u sugayso isaga markuu soo dhaadhaco aad la hadal istidhaha kolkaana waxaa laga yaabaa inuu kuga joojin waa hore gaadhigiisa uu ka sii karo oo maarata waxaa laga yaabaa ama shir inuu ka gaadhayo ama meel kale uu ku ordayo wakhtigu maaragtay uu maarata kugula hadlo inuu waayaa laga yaabaa ama mudnaanba uu ku siin waayo ta kaleeto haddaan u soo noqdo goobaha cibaadada laftooda iyaga laftooda waa saasoo kale iyagona laguma xisaabtamo accessibility dadka naafadii ay ka geli lahaayeen maarata masaajidka ay ka geli lahaayeen laftirkooda iyaguna kuma daraan axmed cabdiraxmaan aadan axmed tudhi shakaal t v bartamaha caasimadda dowladda soomaalida magaalada jigjiga xogayaha dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku boorin doona in Israel joojiso dhibaatada ballaaran ee ku haysa shacabka reer Falastiin sida warkan inagu faahfaahinayso wariyaheena Fiime Ibrahim diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa bilaabaya socdaal cusub oo bariga dhexe ah iyadoo ay socdaan weerarada Israa'iil xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken oo ku boorin doona Israa'iil inay xakamayso rabshadaha ay sameynayaan dadka Falastiiniyiinta degan daanta galbeed ee la haysto oo xooga saaro ilaalinta rayidka inkastoo aan dhaleecayn loo jeedin dadka rayidka ah ee Gaza isbuuciyo kadib safar uu ku tagay bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken waxa uu ku soo laaban doonaa gobolka isagoo wata fariin ka sii fogtii uu soo jeediyay isla markiiba howlgalkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee Israa'iil iyo jawaabtii militariga Israa'iil ay ka bixisay go'aaminta Gaza sida uu sameeyay bishii hore Blinken waxa uu ku nuuxnuuxsan doonaa taageerada Mareykanka ee Israa'iil oo isku day doono inuu ka hortago dagaalka ballaaran ee bariga dhexe ah isagoo booqan doona Israa'iil iyo Urdun laga bilaabo Jimcaha laakiin ajandaha Blinken waa mid ciriiri badan oo aad u cakiran marka uu khilaafku sii xoogeysanayo oo maamulka Biden uu la tacaalayo danaha iyo carrada gudaha iyo tan caalamiga ah wuxuu riixi doonaa dad badan oo ajnabi ah oo laga soo daadgureeyo Gaza iyo gargaar bini'aadantinimo oo dheeraad ah oo dhulka ah wuxuu ku cadaadin doonaa Israa'iil inay xakamayso rabshadaha ka dhanka ah Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto ee ay geysteen dadka degan Israa'iil wuxuu carabka ku adkeyn doonaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta rayidka inkastoo maamulku uusan soo bandhigin weli wax dhaleecayn ah oo Israa'iil duqaymo ay ku dhinteen kumanaan rayid ah oo ku sugan Gaza marka isagoo ku baaqaya hakad kooban ee duqaymaha cirka iyo dagaalka ujeedooyinka bini'aadantinimada wuxuu sii wadi doonaa inuu ka soo horjeesto baaqyada sii kordhaya ee xabad joojinta dagaal xoogan ayuu ku dhaxmaraya Xamaas iyo Israa'iil deegaan lagu magacaabo Khan Yunis ee bariga marinka Gaza sida warkan ugu faahfaahinaya Cabdiraxmaan Boqorre dagaalka ayaa galay maalinkii 7-aad iska horimaad ayaa ku dhaxmaraya ciidamada xoogaga Xamaas iyo Israa'iil deegaanka loo yaqaan Khan Yunis in laba ka tirsan dabaabaadka ciidamada Israa'iil halkaasi lagu gubay sidaasi Abu Ubayda afayeenka kooxda Al-Qassam ayaa u sheegay warbaahinta Al-Jazeera ciidamada ayaa jilibka u dhigay guluf dhulka ah oo ay Israa'iil ku doonaysay inay ku soo gasho deegaanada dhulkaasi dagaal xoogan oo u dhaxmaray kadib waxa la burburiyay taangiyada Israa'iil dhinaca
dhinaca kale Israa'iil ayaa qiratay in laga dilay 15 askari oo ka tirsan ciidankeeda kadib isku horimaadkii halkaas ku dhaxmaray dhinaca kale dawladda Bolivia ayaa sheegtay maalintii shalay ahayd inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dawladda Israa'iil Bolivia ayaa sheegtay inay ilaalinayso xuquuqda aadamaha maadaama ay xasuuq ka geysatay Israa'iil dadka shacabka ah ee ku dhaqan Gaza waxa ay sheegtay Bolivia inay u dulqaadan doonaan si socoshada dilka baabiinta duqaynta iyo waliba cunaqabataynta lagu soo rogay Cabdiraxmaan Saciid Boqore telefishinka Shakaal magaalada Jigjiga turxan bixinta safiirro magacaabay madaxweyne William Ruto ayaa maanta la soo gabagabeeyay faahfaahinta warkanna waxay noo eegaysaa wariyaheenna Xabse Maxamed guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa maanta soo gabagabeeyay turxaan bixinta 27 qof oo madaxweyne William Ruto u soo magacaabay xilalka safiirnimo shalay ayay ahayd markii 4 ka mid ah shakhsiyaadkan ay ka soo hormuuqdeen guddiga baarlamaanka ee uu hogaamiyo Nelson Koech waxay kala yihiin Stella Oriona oo Kenya ku matali doonta Jarmalka Nermias Sharon oo isna ku matali doona Spain Makolo oo Australia ku matali doona iyo Amy Jerono oo Kuuriyada Koonfureed ku matali doonta Kenya intii ay turxaan bixinta socotay waxaa la qiimeeyay aqoonta arrimaha caalamka ganacsiga diblomaasiyadda iyo fahanka ay ka haystaan waajibaadka loo igmaday Stella Oriona oo tan iyo bishii 6 ee sanadkan ahayd agaasimo ku-xigeenka akademiyadda adeega dibadda ayaa ballan qaaday in haddii magacaabideeda la ansixiyo ay xoojin doonto diblomaasiyadda dhaqaale ee Kenya waxay hoosta ka xariiqday inay dadaal badan ku bixin doonto sidii sare loogu qaadi lahaa ganacsiga ka dhaxeeya Kenya iyo waliba dalka Jarmalka Ola Zain ayaa dhankeeda sheegtay inay Kenya ka dhigi doonto meel arrimaha dalxiiska looga soo hirto wadanka Spain Makolo ayaa dhankiisa tilmaamay inuu xooga saari doono diblomaasiyadda deegaanka si looga badbaado saameynta isbeddelka cimilada iyo cuniyada sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono iskaashiga dhanka ammaanka ee ka dhaxeeya Kenya iyo Australia si gaar ah ka hortaga khataraha weerarada internetka Professor Kibuza ayaa dhankeeda sheegtay inay isu xiri doonto xarumaha tacliinta sare ee Kenya iyo Kuuriyada Koonfureed Nelson gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee arrimaha difaaca xiriirka dibadda iyo sirdoonka ayaa sheegay in safiirada la soo magacaabay badankood ay leeyihiin fahan diblomaasiyadeed wuxuuna ku booriyay in haddii la ansixiyo ay ka shaqeynayaan sidii Kenya ay u noqon lahayd wadan looga soo hirto dhanka maalgashiga waxaa ilaa iyo hadda su'aalo la weydiiyay 27 safiir guddiga turxaan bixinta sameynaya ayaa laga doonayaa inuu warbixintiisa baarlamaanka u gudbiyo 8 bishan 12aad ama xilligaasi ka hor Xabse Maxamed Shakaal TV Nairobi waxaa iga daawada qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkani fiidnimo ee caawa oo aad kala socoteen Shakaal TV warkan waxaa idin la socodsiinay anigoo Cabdirasaaq Shiina warkan warka xidib inta hawada u kulmeen waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah